saddex baa ugu xun baa la yiri oo ugu liidato oo laga guursanin oo gabadhaada la siisanin ilaahow saddexdaas mid kamida xatee mid kamida ilaahow gabdhaheena ha u sahlin saddexdu maxay kala yihiin midka koobaad waa gabdadshe muxuu yahay gabaray gabdadshe muxuu yahay gabdadshe waa ninka yacni sida ay Soomaalidayna u taqaano ninka wixii oo gabadha siinaayo u xisaabiyo oo maanta dhan waxbuu u rubac naagii hore gumbaanada tumi jireen waxay yireen waxbuu rubac dukaanleyda lama tago waxbuu rubac nimanka dukaanleyda oo la lahay waxbuu rubac camal waay sababtay tahay ninkaas oo kale waxbuu rubac maanta dhan wuxuu ku leeyahay saliida intaana bisha kugu filan intaas intee geeyday yaad siiday sokorta intaas ay aheeday anaga intaas aan ugu filan bariiska intaas baan ugu filan baastada intaas baan ugu filan maanta dhan guriga ayuu ku xisaabiyaa reerka ayuu ku xisaabiyaa shilinka baxa ayuu xisaabiyaa shilinka soo galayo xisaabiyaa sanduuq baa halkaas u yaala wuxuu leeyahay maanta maxaa loo baahan yahay intaas waa idinku filantaa gabadhi dhamay wuxuu ku ridayaa sas iyo dhanka iyo murug haday marto timaado xatee ama dukaamanka ka doonata hadeynay biri iska dhiibi doonta muslim baa ku bixi doona istiraada amba ayada ayaa waxay sameeysaa asiga intay u laabatay tiraaniyahow martidaas baa joogtay kan ayaan wax ku badsanay maanta dhan dhariyowsan asiga karin ama uusan ogaanin ama uusan ka warqabin gurigaas laga mashido gabdadshe waa idin kala talinayaa ilaahay inuu midka guursanayso oo ka dhigin midka oo hadda u yahayna ilaahay ha uga bixiyo oo hadalkayga iyo waanadayda intuu wax ku qaato gabadha iyo wax u rubacinina wuxuu ilaahay u soo dhiibo kulay awlaadiisa iyo ilmihiisa iyo gurigiisa la siinayaaye bal intuu bismillaahi yiraaho gabadha iyo wax u rubacinina waxay tabartiisa oo qiyaastiisa intuu u dhiibo bal iimaanka inta gashtaan bismillaahi inta dhahan ilaahay ha u barakeeyo aniga intaasaan leeyahay waa midka koobaad gabaray midka labaad waa gablanshe muxuu yahay waa ninka gabadha intuu soo dalbado asoo meelahaas joogo ama aanan u dhaweynin inta yiraaho gabadhan hala isiiyo gabadhana ay istiraaho nin baa gacanta ku galay oo maanta baad nin fiican haysataa hadda waxaan ku dhahay intaasoo lacaguhu dhiibaya gabadhi ninkii soo doonto ee lagu daray ama ayada ha keensata ama waalidkeeda hala gacloode aanan u soo laabanin gabaray guurka waxaa loo guursadaa inuu ilaahay awlaadna siiyo oon ku badano oon ku barakowno oon raas weyni ilaahay nooga dhigo waxay sameyn jireen dumarkii hore ninkan baan guursaday intaas baan la joogay waxba uma dhalin amaan meel kala dayaa amaan kala nasiibsanaa hadda ninka maba fiirinaysa lacagtay fiirinaysa maxaa aniga ninkayga dibaduu jira lacaguu ii soo dira maxaan ku falayaa nin joogo maxaan ku falaa nin maanta 4 saac ila joogo war saas lama rabo gabdhow wiilalow saas lama rabo guurku wuxuu ku wanaagsan yahay ninka ha baxo ha maqnaado ma diiday laakiin gabadhiisa waa inuu sanad kadib u yimaado haduu ilaahay awlaad siiyo xataa 9kaas bilood ay dhashay sanadka kale ay nuujiso 2 sano kadib ha ku xisaabtamo wax dheef ha ku xisaabtamin niyahow gablashaha naqanin gabadhaas ilaahay awlaad inuu siiyo adna ku siiyo barakowdiin niyahow gablanshe ma wanaagsanee imaaw oo reerkaagi u badnaaw oo guurkiini u badnaado dad isla joogo hadii xatee aad kala maqantihiin waqtiga iyo taamkii awlaadda ku xisaabta ma noqdo gablanshaha naqanina gabdhow waa idin kala taliyo wiilalo waa idin kala taliyo galabta tan waxay ku socotaa rag iyo dumar kala ma socoto waano idinka wada dhan gablansha iska ilaalsha gabdhow idinkana wiilalo gabdhaha gablanshaha ka dhiginina midka saddexaad gabaray waa galmamshe muxuu yahay yaa gabaray ereygaas waxaa waayay gabadha ninka 24 saac gabadha daba joogo oo daba taagan oo waxaan ku dhahay jikada haday gashay la galaayo oo guriga haday joogto la joogaayo oo jidka haday marayso la soconaayo maanta dhan meel aanan ka aadeen on dan aan ayada lahaynin hadda Soomaalida waxay dhihi jirtay hooy canjeero isii waayo xaguu aadaya maanta dhan ayadoo sidii koran camal iska daba joogaahay
hadda waayahay adiga wiilkow ha yaraa weynaaw oday ahaw dhalinyaro ahaw jaceelka xatii hadduu oo kaatan badsho waqti baa la sameeyaa waqtiga la sameeyaa waxay tahay gabadhan waad jeceshahay ma la diidano ayadana way ku jeceshahay laakiin inaad waqti shaqo aado oo nolosha guriga raadiso oo danaha reerka raadiso aad micnaha ayaduna ha isku ka diyaariso ha ku sii qabaysato guriga ku sii leefiso waxaad cuntaa ku sii diyaariso waqti aad siiso laakiin sida qof aadan ku kalsoonaynin oo meeshaba kalsooni oodin maanta dhan inaad dabada dhuq daba taagnaato waa laga wanaagsan yahay gabdhuhuna ma jeclo gabdhaha ninka saasa ma jeclo waa idin salaaba asxaabay hadduu idin soo gaaro kilibkan laagta iyo sheerta iyo commentiga ha ka iloobinina hadda marka dambe aniga waxa way waan idin waaniyaa wax baan idin sheegaa